hanaan gudbinta iyo habsamida sharaxaada darsiga halka kaliya aad ka heli karto waa isha aqoonta oo aqoontaad u baahneed aaladaada si aayar uga baro amaan ma aha waad soo eegi kartaa sidoo casharka u kala dhigdhigayo mid kale sameeya arkimaysid magac leekakas wadadii guusha unuka ku hayno turjubaanku baa shalay luqad ma aqoon barasho ay ku gaaray bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waa casharka saabsan wada sheekaysi luqadda Sawaaxiliga halkani waa iskuulka online-ka isha aqoonta aniguna waa macallin Cabdiqaadir jumlada ugu horeyso qofka ugu horeeyo wuxuu leeyahay wanamume nin ayaa anaripoti warbixin katika gudaha kutano shir kuhusu ku saabsan yendo dhaqdhaqaaqa za oo ah mauzo ganacsiga ya ee ah kampuni yake shirkadiisa yeye isaga anatumia chati gani qorshaha uu ku isticmaali doono waakii qorshahaasoo kati u dhaxeeya ya mbili labada katika ya hizi qorshayaashan oo ah hotuba yake khudbadiisa katika ya hizi waxay ka dhigan tahay kuwaani hotuba yake khudbadihiisan kuwaana qorshayaashe ayuu kaga hadli doonaa ayaa laga wadaa jumlado cusub oo markaas muhiim ah asante waxa laga wadaa mahadsanid aad baad u mahadsan tahay luqadda Sawaaxiliga waxa lagu dhahaa asante waad mahadsan tahay sana aad iyo aad u mahadsan tahay ee laga wadaa asante sana sidoo kale waxa dhihi kartaa karibu loo macneeyo qaadata hadii toos loo fasiro waa soo dhawow si kale waa adiga yaa mudan sidoo kale waxa la dhihi karaa kamwe waxa lagu fasiraa waxba ma ahan ama waxba kama qabo laakiinse waxa laga wadaa yani sida dadban adiga yaa mudan ayaa laga wadaa uko tayari diyaar ma tahay ayaa laga wadaa inta badan dadka luqadda Sawaaxiliga ku hadla waxay isku salaamaan habari macnaheeduna waa haye ama waan ku salaamay unakumbuka ma xasuusataa ayaa laga wadaa ayaa laga wadaa shikamo macnaheedu waa haye ama waa macnaha salaan oo aad markaas isticmaalaysid qofka weyn waana salaan ixtiraam ku salaysan tunaane tena waxa laga wadaa is arag dambe ayaa laga wadaa ongea Kiingereza waxa laga wadaa ma ku hadashaa luqadda Ingiriiska je unaweza Kiingereza luqadda Englishka in aad ku hadashid ma awooda ayaa laga wadaa je waa su'aal samayn tusaale English ku isticmaala is am are Soomaaligana waa ma waxa ma yahay ma tahay marka je macnihiisu waa ma yahay ama ma tahay yani xarafka ma oo anaga su'aal ahaan u isticmaalno ayaa marka la macno tahay je unaweza waxa laga wadaa awoodid samahani igaraan naqo unaweza ma ku hadashaa Kiingereza luqadda Ingiriiska samahani unaweza Kiingereza igaraan naqo luqadda Ingiriiska ama afka Ingiriisiga jawaabtu waa saddex midkood kow ina dhahdid dio macnaheedu waa haa ama kidogo wax yar ama la siongeye Kiingereza
gereza waxa laga wadaa maya ingiriis kuma hadlo. Siongeye ku hadlid ayaa laga wadaa. Samahani iga raali noqo ayaa laga wadaa. Samahani naweza agiza cha kahawa. Samahani naweza agiza cha kahawa waxa laga wadaa iga raali noqo koob kafee ah ma dalbi karaa. Samahani Mogadishu iko wapi. Samahani Mogadishu iko wapi iga raali noqo Muqdisho halkay ku taala ama Muqdisho aaway iga raali noqo Muqdisho aaway. Niwiye raadi macnaheedu waa iga raali noqo. Niwiye raadi waxa laga wadaa iga raali noqo. qof ayaad rabtaa inaad su'aal weydiisid si xushmad ku dheehan tahay aad u leedahay niwiye raadi oo macnaheedu yahay iga raali noqo. sideed ku dhihi kartaa nambarkayga waa sidaas. waxaad ku leedahay nambari yanguni nambarkaygu waa inaad barataa tirooyinka luqadda Swahiliga. tusaale waxaan u soo qaadanaynaa nambarka iskuulka. Sufuri waa eber. Bili labo. Tano shan. Bili labo ayaa laga wadaa. Sita lix. Tisa sagaal. Moja hal. Sufuri eber. Saba todobo. waxay rawan ka soo qaadanay xisaabta. 38 ayaa laga wadaa. Sabini na pili 72. Mia moja boqol. Mia moja na kumi 110. Mia moja na 20 120. Mia moja sitini na saba 167. Hii ni pesa ngapi? marka wax iibsanaysid waxa leedahay shaygan waa imisa. Hii ni shaygani pesa ngapi waa imisa. Gabi qiimaha laga wada. waxaad ugu jawaabaysaa ni shilingi. shilinka wuxuu yahay sheegaysaa qiimaha waa tirada waxay tahay 16 oo kale 16 ayaa leedahay. Samahani iga raali noqo begi boorsada. Hii ni oo tana pesa ngapi qiimaheedu waa imisa. kab luqadda Swahili waxa lagu dhahaa waa kabta la xirtee waa hal kab. Kiatu markay tahayna labo waa fiatu.